akhlaaqda marka la tilmaamo iyo qofka muslimka ah dhaqankiisa gaar loo sii tilmaamo waa shay runtii u baahan in badan dadka muslimiinta eegaan weliba faciina dadka ah waxaan u tilmaamayaa faciina waxa weeyaan ummadaha jiritaankoodu wuxuu ku xidhan yahay say isu dhaxal siiyaan waxay rumaysnaayeen iyo waxay ku dhaqmi jireen waxaanad moodaa casrigan dambe in bulshooyinka dhaqamadoodii ay aada isu bedelayaan oo wadanadii xooga batay ama dadkii xadaaradoodu ay haalibka noqotay dhaqamadoodii ay noqdeen kuwa faashiga ama faafa ama kuwa xoogan ee dadku inta badan uu soo dhaweeyo ama daahiro noqday mujtamacaadka ka dhex muuqda qofka bini aadamkaana suluugiisu ama dhaqankiisu waa dadnimadiisiiba qofka dadnimadiisu maaha intuu joogiisu iyo dherarkiisu leegiyey ama inta quruxdiisu leegtay ama xataa thaqaafadiisu iyo garaadkiisu intuu leegyahay waayo waxaasoo dhammi wax badan ma macneeyaan haddii qofka dhaqankiisu uu liito qofka waxa tarjumo saxiixa ka bixiya qaabka uu u dhaqmayo maca allahi subxaana wa tacaala maca khalqi sida uu la dhaqmayo ayaa waxay ka bixisaa qofka tarjumo dhaba insaankana inta badan dhaqanka ka soo fula waxa uu si dhaba ugu xidhan yahay waxa uu rumaysan yahay iyo maskaxdiisa waxa maskaxdiisa ku guntan ayuu in badan ka soo fula ilaahay waa ka quraanka ku tilmaamaya والبلد طيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا إلهي وحليه سبحانه وتعالى dhulka fiican sida fiican alle subxaana wa tacaala uu abuuray markuu roobka iyo dee uu helo naxariista alle subxaana wa tacaala waxaa ka soo baxa baa ilaahay yidhi nabaadkii dhulku laakiin marka horeba hadduu meel diriya iska ahaa ama meel tamuuxa iska ahaa ama meel fiican haddaanu ahayn qaadh unbaa ka soo baxa baa la yidhi wax naf leh kama soo baxaan idan waxaa la yidhaahdaa akhlaaqdu waxay ku salaysantah qofku wuxuu rumaysan yahay sida ogeed baa la yidhahdaa dadka muslixiinta ah dadka raba inay wax islaaxiyaan waxa ugu fiicane ay ka bilaabaan waa inay noqotaa dadku waxay rumaysan yihiin ما في النفوس هذا إصلاح نفط جوده هذا واحد كتيرة أفعاشن كصباح يصير دقن كيسن دبدينا وهجاجية أنت نفط واحد كتير طايحون طهينا لقى ما في ليين وحفي عنه كصباحان أخلاق ذو وحن أورنكره مركا حضارتها أما لقى ورما يوحن نقول الماما البحر مدى بني آدمك waxay ka mid tahay baa la yidhaahaa miqyaaska lagu qiyaaso nolosha dadkaasi intay horu martay iyo intay dib u dhacday mujtamacu markay akhlaaqdiisu fasaada bay yidhaahdaan waa astaan ama se digniin sheegaysa inay ummadaasi jabayso xataa kuwa gaalada ah xadaaraadka caalamka marka dib u taariikhiyan loo raaca baa la yidhaahdaa ummad kastaa markay jabaysay waa markay xadiidka ku noolayd xagga akhlaaqda markay aad meel hoose u gaadhay ayay sii jabaysay ولذلك مشاعرك عرباد وحلها وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فاقم عليهم مأتما وعويلا يعني إذا أصيب القوم أدي دول بولها أخلاق ذو بلده يعني حقا هذي مشكلته كقرد عضو فاقم عليهم مأتما وعويلا إن أيتهاي شيء وقوة وحيرات المامية أما أنت وقوين النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلى القرآن قلت المامي وحكمده وإنك لعلى خلق عظيم إلى النبي سمرك أماني عليه الصلاة والسلام أمانتك أماني وحويا وإنك لعلى خلق عظيم أخلاق يسجية يدين يدقم في عن إنه كسوغين يبقى الله سبحانه وتعالى نبي محمد أمانة ولذلك بقى عائشة رضوان الله عليها واتي شيغي سيبا هدار ربطان خلاق ذا نبيغا كان خلقه القرآن بيلهي نبيغا با عليه الصلاة والسلام وحا أخلاقها قرآنك بل waxaynu arki karnaa akhlaaqda toosinteedu inay tahay xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam siduu ciladaba uga dhigay risaalada
risaaladaba waxa lagu cileeyay in loo soo dejiyay bitaqwiim al-akhlaaq walidalik buu xadiidkii Bukhari adab al-mufrad ka ku warinaya Xaakim iyo Bayhaqina ay warinayaan Suyuutina taxsiinina wuxuu nabigu leeyahay alayhi salaatu wasalaam inma bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaaq nabigu wuxuu leeyahay alayhi salaatu wasalaam inma bu'ithtu waxa la isoo bixiyayba waxaan rasuul u ahay ee bulshada la igu soo dirayba waa akhlaaqda keeda fiican inaan dhameystiro buu nabigu yiri alayhi salaatu wasalaam akhlaaqda keeda fiican inaan dhameystiro bal xadiidka Tirmidhi xasan saxiixa waa ka nabigu ku tilmaamaya mu'miniintuba xataa iimaankoodu sidoo kale xoog badan yahay inuu yahay sidoo kale akhlaaq fiican yahay akmalul mu'minina iimaana yani hadaynu dhib bulshooyinka noloshoodu fiicnidooda iyo xumaheedu halkay joogto miqyaas waxa kamida wax lagu qiyaasa akhlaaqda waxa leenahay xataa iimaanka dadka ku jira maqaayista lagu qiyaasa waxa kamida akhlaaqda ka soo fushaynta ay leegtay saawgeed buu nabigu wuxuu leeyahay akmalul mu'minina iimaanan dadka mu'miniinta waxa iimaankiisu ugu dhameystiray ama waxa iimaankiisu ugu xoog badan yahay ahsanuhum khuluqa buu nabigu yiri kooda ugu dhaqanka fiican leh iimaan weyniduba waxay ku salaysan tahay maxay dhaqan fiicni bal nabigu alayhi salaatu wasalaam xadiidka imaamu muslim warinayo waxa uu ku sharxay wanaagaba waxa la yiraahdaa albir wa kalima jaami'a kulansata waxa wanaaga loo yaqaan oo dhan waxa uu nabigu ku sheegay alayhi salaatu wasalaam wanaagba waxa la yiraahdaa albirru husnul khuluq birrugu buu nabigu yiri alayhi salaatu wasalaam wa fiicnida akhlaaqda akhlaaqdu intay fiican tahay ayuun buu fiican yahay halana marka akhlaaqdu waa shay qiimo aad u badan ku leh miisaanka islaamiga waa shay qiimo aad badan ku leh bulshooyinka iyo mujtamacaadku qaabka ay u noolyihiin iyo qaab dhaqankooda waa shay qiimo aad u badan ku leh fardiga iyo dadnimadiisa qofka bini aadamka iyo dadnimadiisa behaviorkiisa ama suluugiisa ama moralskiisa waxay ku tilmaamaan qofka bini aadamka waa afcaashi ka soo fulaysa nooca ay waqti idan insaanku wuxuu qiimo leeyahay inta uu xambaarsan yahay akhlaaq nabiguna alayhi salaatu wasalaam wuxuu axaadiisaba ku tilmaamaya iimaanka ducfigiisa ama liidashadiisa iyo iimaanka weynidiisa waxa lagu kala eegaa inay tahay akhlaaqda fiican oo dhaqanka xumi wuxuu daliil u yahay ku tusiya ducful iimaan ama se cadam wujuudi iimaanka liidashadiisa ama se yaraantiisa ayuu ku tusinaya sida ogeed buu nabigu alayhi salaatu wasalaam markuu munaafiqa ka waramayay munaafiqa waxa la yiraahdaa calaamadu leeyahay aayatul munaafiqi thalath nabigu wuxuu alayhi salaatu wasalaam munaafiqa saddex calaamad lagu gartaa munaafiqa qalbigiisa lama arkayo ilaahay uu baa og subhanahu wa ta'ala waxa ku jira laakiin afcaashiisa laga qiimeyn kara sida ogeed buu nabigu wuxuu alayhi salaatu wasalaam munaafiqa ba aayada lagu gartaa waa saddex إذا حدث كذب هدو ورما باليري وبيناله بين بوشيغا حديث كيسو نيكا كان وركيس شكديسا بين كما مدنا وإذا وعد أخلف هدو بلن قاضو أما وحيبه إلى وحسان يليه أما وحاس هينو أهاتو وحي بلن نوو بريا أبو نبي عليه الصلاة والسلام وإذا تمن خان هدي لا آمنه نوحبو خيامية صدح خصلا ما صدح شيء وصفات كالليتا أبو نبي تلمام صفات كالليتا وحا كما ينقفكم بين شيء بانت قرطة بينالو وفوله يمركو كوات ويوقف عن حقيقة واجهه كريم بينالو وقف ربه حقيقة الصديتين أنو واجهين إنو واقع خلافسان وشيغو إذا واحد علامات كوادا بينالا لغو يقانا وحويا وقف ليان حقيقة واجهي كرا حقيقة سيدة ومشي كرا قفكنا كما هبونا فلنمدو وواقع وكبن شيغي نبي عليه الصلاة والسلام إيمانك مركا وحو علامات النفاق وحا علامات لغو دقينو بينالي بل القرآن كإلهي محوكة المامية إنما يفتري الكذب
aladiina laa yu'minuun baa ilahay yidhi innamaa yaftari alkadib beenta wuxuunbaa abuura baa la yidhi kuwaan iimaanka lahayn idan qofku inuu been sheega waxay doontaa ha ka qadhaadhaato qofka muslimka waxa lagu yaqaanaa inuu run sheego inuu xaqaa'iqda sidooda u tilmaamo taasaa dadnimadiisu ay ku jirtaa qofnimadiisu ay ku jirtaa raganimadiisu ay ku jirtaa shajaacadiisu iyo geesinimadu ay ku jirtaa yani dadka ducafada waxa lagu yaqaanaa inay isku dayaan xaqiiqada inay ka baxsadaan xataa in badan kuwan qaad iyo khamro iyo waxa kani waxay jecel yihiin inay noloshaba isdhaafiyaan yani xaqaa'iqda noloshu diiday qofkan inuu waajaho saasi daraadeed wuxuu doonayaa mahrab meel uu cararo walidaalika sakhradan iyo waxaan la sameeyo dhan inta ugu badan la qaar waxa ku kalifta inaanu xaqiiqada waajihin awgeed nabigu khasalada labaad ee uu ku sheegay waxa weeyaan waa qof aan ballan lahayn wixii tegey been buu ka sheegay waxa soo socda uu ballan qaado ama mustaqbalka siduu u arkayaana iyana waa la nooc hadduu ballan qaado baa la yidhi waxa xigaa waxa weeyaan inuu khilaafo shayga saddexaad ee uu nabigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaamna waxa weeyaan inaanu ahayn qof wax lagu aamini karo mas-uuliyad qof qaadi kara ammaanadu waa shay aada u weyn inuu qofku qaado mas-uuliyad ah wixii loo dhiibay waxay doonto ah sir ha noqoto hanti ha noqoto maamul ha noqoto wuxuu doonaba ha noqdo shayga lagugu aaminay shay macnawiyana wuu noqon karaa shay maadiyana wuu noqon karaa waa qof aan xambaari karin ama sidi karin ama ilaalin karin ammaanada loo dhiibo intuu doonaba ha leekaaday oo khiyaanadu waa wax liita qishka iyo tuugada iyo waxan oo dhan waa nooc min alkhiyaano khiyaanadu waa wax aada u liita waana min calaamaati saacaba nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi yani wuxuu tilmaamaya saacaddu markay iman doonto waxyaaba caanka noqon doona waxa ka mid ah in la yidhahdo reer banu fulan yani qof aamina mujtamac muslima may ahayn in hebel uun la tilmaamo qof aamina mujtamac dhan laga dhex tilmaamo lakin waxa mujtamaca muslimkii asliyan inuu ammaanada ku sifoobo bale xadiidka kale saxiixu muslim ku yaal waa kii nabigu ku tilmaamayey afar qofka isugu wada timaada buu nabigu yidhi kaasi waa munaafiq dhaba dee afar ay kugu wada xaadirto oo aad afartaa sifaba ku wada sifowdo waa munaafiq khaalisa buu yidhi qofka qayb ka mida ay ku sifowdana nifaaq camali qayb ka mida ayaa ku sifowday nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay dhowrkan shay aynu tilmaamnay qaar ka mid ah idaa xadaa kadab waidaa caahada gadar waidaa wacada akhlaf waidaa khaasama fajar wuxuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam warka inuu beenta ka sheego ballankana inuu buriyo hadduu cahdi galana inuu cahdiga khiyaamo ka sameeyo hadduu murmana yaan lagaa badin siduu u leeyahay inuu fujuurka u dhaco muranku waa khasla aan wanaagsanaynba marka hore bale nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay qofka muranka iskaga taga walow xaqna ha ahaadee in bayt jannada u helayo yani muranku ma fiicna muranku waa qof raba un dadka inuu jabiyo waayo markaad murmayso hebel yuu kaa roonana jabi un baad sileeda ka xoog bado waa xubil buruuz waa qof raba inuu dadka ka kor noqdo islaamkuna waxa uu ammaana waa tawaaduca iyo isdhuldhiga iyo qofku inuu bulshadiisa ka mid ahaado inaanu faanfaan iyo isla weyniyi ku jirin murankana asliyanba waxaad moodaa waa qof jecel inuu khasmigiisa ama cadowgiisa mar kasta inuu jabiyo xaq iyo baadilma inaan lagaa geerhelina inaad soo taagnaato nabigu wuxuu yidhi qofka markuu murmayo fujuurka gaadha kaasina baa la yidhi isaguna waa khasla min khisaali nifaaq qayb ka mid ah waxaan leenahay marka dhaqanka diintuba ay sheegaysa ee dadnimadu sheegaysa yani fadaaisha akhlaaqdu wa fadaa'il al-a'maal waa inta ugu badan le wax bini aadamku qaybteeda ugu badan le isku wada waafaqsan yahay waxaynu oran karnaa waa waxyaabii diinta ugu soo hordegay bay kamid tahay yani ahkaamta sharciga inta badan madiinay ku soo degtay laakiin masaa'ilka aqadiga ah iyo masaa'ilka akhlaaqda ku saabsan inta ugu badan le quraanka makiga ba ka warrama yani usul al-akhlaaq inta ugu badan leh waxa ka warrama maxay quraanka makiga ah waayo dadnima la foom garinayay qof baa la sameeyay qofkuna aqeedo qalbiga degta iyo dhaqan ka soo fula weeyaan waxaad ka garan kartaa
sida uu nabigu calayhi salaatu wasalaam u ilaalinayay xataa saxaabadu dhaqankay ku dhaqmayaan. islaam baa maalin inan yaro ay dhashay u yeedhay, markaasay tidhi kaalay hooyo timiraan ku siiye. nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam timir ma siinaysa? haabay tidhi. wuxuu yidhi haddaana timirta siin lahayn beenaalad baa laguu qori lahaa. hadda ma aha war kaloo laga warramayo iyo sheeko kale, waa ilmo in lagu sasabaanay habboonayn. beentu cidnaba uma cuntanto, qof yarna looma sheego. qof yarna weligaa been ha u sheegi, ka weynna ha u sheegi. hadduu yar yihiyo hadduu weyn yihiyo qof walba waxaad isku daydaa inaad run kula dhaqanto. si awgeed buu nebigu wuxuu ku yidhi islaantii haddaad intuu kuu yimaado aanad waxba siin lahayn aad ku qabsan lahayd oo kale beenaalad baa lagu qori lahaa. waxaa ka sii muuqaal badan oo aynu sii tilmaami karnaa masaa'ilkanuu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam. xadiidka saxiixii saxiixu muslimka ku yaala, xudayfata bnulyamaan markii iyo aabbihii markay soo hijroodeen ayaa xudayfa mar dambe wuxuu ka warramayay wixii ka reebay inuu beder ka qayb galo. xudayfa dagaalkii beder kamuu qayb gelin, isagii aabbihii toona. aabbihiina dagaalkii uxudba markay muslimiintu isdildilaysaa lagu dilay, yani markii dadku isdhex galee la qaldamay iyadoo gaal la moodayaaba la dilay. xudayfa wuxuu leeyahay aniga iyo aabbahay ayaa soo hijroonnay. dhexda markay marayeen bay qurayshi qabatay oo beder yaro dagaalkii u soo socda. waxay ku yidhaahdeen waryaadheen moxamed baa doonaysaan? waxaanu rabnaa bay yidhaheen madiina. hayaa ku socotaano madiinaanu ku soconnaa bay yidhahdeen. waa iska tawriyaysteen. dabeetana waxay yidhaahdeen ballan ma naga qaadaysaan haddaa maxamed u tagtaan iyo madiine markaad tagtaan inaydan la soo jihaad geli doonin, la soo dagaal geli doonin? ballan bay ka qaadeen. ballanka ayaa lala gelayaa gaalo xaggee ku socota nebi maxamed ku duulaysa calayhi salaatu wasalaam. maxaa lagula gelayaa marka magaaladii tagtaan inaydan noo soo raacin nebi maxamed? saas ma ballankaa ma nala gelaysaan aanu sii dayne? sidii bay aqbaleen, ballankii bay la galeen xudayfe iyo aabbihii. dabeetana madiinay qabteen. nebiga calayhi salaatu wasalaam bay la kulmeen. nebiga warkii bay u sheegeen. waxay dhahay ilaahay rasuulkiisiiyo dhexda markay kula kulmeen sidaasaanu u soo baxan. markaanu halkaa maraynana nimankaa mushrikiintaana qabtay, ballan baana lagu soo daayey. ballankaasi wuxuu sheegayaa inaanan dagaalkaa maanta nimankaa quraysheed nimankaa gaaleed kugu soo wadan inaanan kula gelin. nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam insarifa, iska taga buu ku yidhi. nafii lahum bicahdihim wanastaciinu allaha calayhim buu nebigu ku yidhi. iyagana ballankoodaaan u oofinaya, allana waan u kaalmaysanayaa, waxbaa ila dagaalgelina iska taga buu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam. ballanka la oofinaya yaa loo oofinaya waa gaal. waana maxay? nebi maxamed ha u gargaarin. ballana nebi maxamed ha u gargaarin. bimujarad inaad soo gasheen ballankaas nafii lahum cahdahum buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam. ballankoodii baan u oofinaya wanastaciinu allaha calayhim. walidalik baa imaam الnawowi wuxuu leeyahay xadiidkan waxaa ka muuqda buu yidhi fiihi alwafaau bilcahd. waxau kaloo sheegay imaamu nawowi markaas culammadu waxay isku khilaafsan yihiin buu yidhi asiirka maxbuuska lasoo qabsada ee muslimka ee gaaladu ay qabatay ee gaalada hadduu heshiis kula galo idinka baxsan maayo. hadda waa maxbuus waana la qabtay. waxaa qabtay cadow gacantiibuu ku dhacay. cadowgii gaaleedee gacanta ku hayay buu ayay yidhaahdeen aad meelahaas ka joogjoogtida ballan qaada inaad baxsanaynin, inaad naga baxsanaynin. hadduu ballan qaado buu yidhi an laa yahruba minhum faqaala الshaaficiyu وabu xaniifa wاlkuufiyuun laa yalzimhu dalik bal mata amkanahu اlharabu harab. imaamu shaafici iyo abu xaniifa iyo kuufiyiintu waxay idhaahdeen warkaasi ballanba ma ahae waa nin la haysto un asiir wixii hadday u suurto gasho iska tegaya. ama imaamu malik raxmat ullaahi calayh, imaamu malik wuxuu leeya yalzamu. waa mar hadduu isagu marka hore inuu diida bay ahayd buu leeya imaamu malik. hadduu aqbalayba ballanka markii hore laazim bay ku noqonaysaa inaanu baxsanin buu leeya u joogo. haddii kale marka ugu horraysa ballankaa waa inaanu gelin. waxaad garan kartaa xadka ay gaadhsiisan tahay
ballan in la qaado oo la oofiyo meesha ay ka taagan tahay. waxaan leenahay marka qofka muslimka akhlaaqdiisu akhlaaq nafciya maaha, yani akhlaaq ku salaysan markaad wax ku helaysana samee, marka aanad waxba ku helayna dhaafa maaha. caalamka waxaa laga yaabaa akhlaaqdu inay nafci tahay. maalan akhlaaq iqtisaadiya baa jira bay yidhaahdaan, oo qofka marka la train garaynayo wax la barayo waxaa loo baraa, maalan shirkad baad ka shaqaynaysaa, meel baad ka shaqaynaysaa, waxaa lagu barayaa customer serviceska, qofka aad u shaqaynayso saad ula shaqaynayso. maxay ku salaysantahay inaad u jajabnaato? waxay dhahaan customer is always right. ninka aad wax ka iibinayso ama wax kaa gadanaya mar kasta isagaa saxsan. hadduu isagu xanaaqo adigu xanaaqi maysid, hadduu waayo lacagta jeebkiisa ku jirtaad rabtaa inaad qaadato. idan akhlaaqda uu ku siinayo maalan ninka shirkadda leh ama mashruuca leh ama project kale waxa weeyaan in lagu yidhaahdo customer services waa customer is always right. ninka shaqaalaha, ninka lacagta hayste isagu wax gadanaya mar kasta isaga xaq leh. adigu haddaad shaqaalitay kama cadhaysiin kartid, ma maagi karta, waa kaa. ama marka halkaa laga baxo waxaad doontaad samayn kartaa. yani waa akhlaaq nafci ku salaysan. qofkan jeebkiisa inaad baadhataan oo waxa ku jira saa uga soo reebtaanun ayay ku salaysantahay, laakiin mabda kaloo insaaniya ay ku salaysantahay ma jirto. islaamku xataa cilaaqaadka duwaliga akhlaaq buu ku salaysan yahay, maaha fardigoo qura. xataa cilaaqaadka duwaliga ah waxaad ka garan kartaa ghazwatu xudaybiya, sulxu xudaybiya maxaa dhacay? muslimiintu iyo gaaladii heshiis bay wada galeen. suhayl ibnu camar saxaabigii la odhan jiro markaa mushrikiinta ka mid iyo nebigu waa kuwii heshiiska wada qortay. heshiiska waxaa ka mid ahaa in qofka muslimka ee ka yimaada xagga gaalada ee soo baxsada in la celiyo. heshiisku ku jiray. heshiiskii oo la wadwado qoraalkiisii ayaa waxaa soo galay baabajandal, wiil uu dhalay odaygan qoraya heshiiska nebiga la qoranaya. wiil uu dhalay oo maxbuus ahayo intuu silsilada ku xidhay meel ugu xidhnayo la torture garayn jiray ayaa intii ay dagaalka iyo xaggan kusoo maqnaayeen gurigii iyo meeshii ka soo baxsaday. dabeetana wuxuu yidhi maantunbaa muslimkuugu dhow yahay, halka nebigii iyo saxaabadii ay joogaan inaad ka gaadhi. wuxuu soo galay markaa iyadoo heshiiska la wada galay ayuu soo galay. waxay noqotay markaa ninka kani inuu la kulmo goob muslimiintiina xagga joogaan, gaaladiina xagga joogaan, laakiin heshiis la qorayo. heshiiskana qodobadiisa ay ka mid tahay in wixii muslimka ka soo baxsada dib loo celinayo. odaygii suhayl ibnu camar saxaabigii la odhan jiray oo markaasi mushrika oo ninka quraysh u qoraya heshiiska dhankooda duqa wax uga qoraya ah ayaa wuxuu yidhi kanina waa waxa ugu horeeya heshiiska ka mid aan kugu eegayo maxamedow. kan wiilkan hadda soo baxsaday waa kowka heshiiska ka mid ah. muslimiintii waxay aqbaleen in la celiyo, waayo heshiis bay galeen. heshiis bay galeen sheegaya qadiyadatan. maadaama ay heshiis galeen, heshiisku waynu sidiisa u fulaa. idan akhlaaqda islaamigii ma laha in la yidhaahdo war mala maslaxadu xaggay inoogu jirtaa iyo xaggan baa muslimka u faa'iido badan, kan baa u faa'iido. ma aha. akhlaaqdu waa akhlaaq. sidaa daraaddeed haddaad fardi la dhaqayso, haddaad mujtamac la dhaqmayso, hadday dawladi dhaqmayso, haddii xarbi lagu jiro, islaamku akhlaaq buu leeyahy. hadaad dagaalansantahay wax kastoo gaala samayso moo lama ogola. dumar in la dilo, carruur in la dilo, kan in la dilo waa lama ogola. waxaan leenahay marka akhlaaqda islaamigii waxa ay sheegaysaa qofka muslimka ahi waa shakhsiya laga rabo inuu dhaqankan si dhaba u yeesho. iimaankuna waxa uu sheegayaaba, iimaanku qofka qalbigiisa markuu dego waxa uu sheegayaa inuu mu'minku noqdo kariim, qof gacantiisu ay furantay, oo deeq badan, oo jawaad ah, oo dulqaad badan, oo jaarka ku fiican, oo waajibaadka ilaaliya. yani waxaan oo dhan waxay sheegaysaa dhaqan. akhlaaqiyaadku badhna waa dabci bay yidhaahdeen ama sijiye rasmiya qofku uu leeyahay. waxyaabaha qaarkoodna waxay u baahan yihiin iktisaab, inuu qofku kasbado. maalan wax waloo nolosha ka mida wax la bartaana waa jiraan, wax loo dhashaana waa jiraan. qofku maalan dulqaadka wuu u dhalan karaa, marka hore dadku wuu kala dul badan yihi, laakiin haddana waa wax la barto oo la baran karo in naftaada aad controli karto o ilaalin kartid. waan cadhoodo dhiish iyo dherigaba waan jabiyey maaha wax kaa soconaya. qofku inuu aqbalo isagoo cadhaysan haddana inuu nafta ilaalin karo. walidaalika buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi xoogga maxaa u taqaaniin? dee waa ninkaan dhinaciisa dhulka la dhigin bay yidhaahdeen.
ninka xooga badan leh waa keebaa la yidhi waxay dee iyagu u arkayeen fasirkooda wuxuu ninka xooga badan leh waa ninka rag markay isgalaan aan dhinaciisa dhulka la dhigin laysa shadiidu bisurca buu nebigu yidhi ka xooga badan leh ma aha ninka marka raggu isgalaan aan dhulka la dhigin kaa maaha ee waa buu nebigu ku tilmaamay alladii yamlik nafsahu cinda alghadab yani xadiidka maa macnaa wuxuu nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam waa ka naftiisa hanan kara markuu cadhoodo ninka xoog badan leh waa iyadoo naftiisa iyo acsaabtiisa iyo dhammi ay kacsan tahay ninka haddana dejin kara ee controli kara ee waan cadhooday aan wuxuu doono ku samayn karaynin waxaan leenahay markaa waxbaa la iktisaabi karaa laakiin qofku inuu akhlaaqda noocana iktisaaba waxay u baahan tahay isku day tiro badan leh iyo tijaabo tiro badan leh qof waliba markuu kelida yahay waxaad tilaadahay malaa cidi kaama dulqaad badna cidi kaama caynkana laakiin waxaad is ogaanaysaa marka lagu gugujeeyo ama lagaa gardaraado ama markaa xaalkaagu siduu noqdo markaasaad qiyaasi kartaa haddii aad meel weligaaba layska kaa ixtiraami jiray aad joogto oo uun waa hebel la odhan jiro lagu wada ixtiraami jiro cid weligaa muuqan mayso dulqaadkaagu intuu leegi laakiin haddaad soo dhex martay un bulsho inuun isjiijiidanaysa ama mashkilad markaasaad is ogaanaysaa naftaadu inta ay tamarteedu leegtay akhlaaqda keeda xun iyo keeda fiicnina waxay la mid tahay qofka bini aadamkii sida uu u kala deganaanshiyo badan yahay ama dabcigiisa ilaahay subxaana wa tacaala uu abuuray waxay la mid tahay uskaga marada kaaga dhaca mid waxaa laga yaabaa markiiba markaad maydho inay maraduba caddaan noqoto nadiif midna waxaa laga yaabaa inaanu 2-3 goor marka la maydho inuu ka bao mid waxaa laga yaabaa inuu maradaba la gaboobo baryaro beri kaaga dhacday inay marada la gabowdo laakiin inay sii khafiifto waa saasoo kale bay dhahay nafta bini aadamka haddaad mujaahadatu nafsi samayso oo aad isku daydo nafta inaad kibir jabiso oo aad tawaaduca barto oo aad barto inay islaamnimadeeda tabaqdo oo aad kibirka iyo fakriga iyo isla weynida iyo waxa kanoo dhan ka ilaaliso waa laga yaabaa naftaadu inaanay aad u adkayn laakiin si aad ugu wado xad baad gaadhsiin kartaa ay noqon karto wax loo dul qaadan karo waxa ka soo hadha waxaan leenahay marka iimaanku astaamihiisa rasmiga ahi waxa weeyaan waa dhaqan akhlaaq baa astaan rasmiya waa ولذلك مثلا النبي وحده المامي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصمت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن ضيره من كان يؤمن بالله امسن با حديث ركتن عين كاشيغيا او النبي قال عليه الصلاه والسلام قفك الهي iyo maalinta qiyaamada rumaysan yani qofka iimaan qalbigiisu degan yahay yujarkiisa dhibi qofka qalbigiisu iimaan u degan yahay ha karaameeyo daybkiisa iyo martidiisa iyo cidda u timaada qofka qalbigiisa iimaan u degan yahay carabkiisa afxumada iyo waxa kan ha ka ilaaliyo bal waxa arki kartaan isagoo ilaahay quraanka kule maxay ya ayyuha alladheena aamanu la yaskhar qawmun min qawm asa an yakunu khayran minhum wala nisaa'un min nisaa' asa an yakunna khayran minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم آيات كاسترة بدل سورة الحجرات لما أنت يتبع أخلاق بيسيدها والصورة بينهدن الأدب كورنته الأدب مع الله مع الرسول مع المؤمنين إلهي وحينات المام يكوى إيمانك لغاها ليو بدكين بدك كليو حقيري وحلقا يابا كوانا حقيري سانا ما كوشيس جيسي سان بين يدك خير بدني مجتمع أخلاقيات كمجتمع عدم يوبا هي وحكم ده إنو الدريمة عدالة دي السنانتي يمد نمديس inaanu mujtamacu noqonin qaarna qaar la kor yeelo sabab kasta ha lagu kor yeelo waa nin maal qabeen oo inta maal kale halka la fadhiisiyo waa madax oo meel gaar ay fadhiisataa waa culimo ama waa dad waa in gaara uun si gaar loo weyneeyo loo buumuuniyo dadka kalena la liido islaamku waxa weeyaan inaan qofna la xaqirin muslima qof muslima inaan la xaqirin waxa uu alla tilmaamaya subhanahu wa ta'ala warna fihinha ceebaynina baa leeyahay wala talmizu anfusakum muslimiintii oo dhan naf qura laga soo qaaday naftiina ceebaynina
warnaanaysa isugu yeedhina baa la yidhi dhaqamada ugu xunxun ee Soomaaliyeed ay gaarka ku tahay yaanan caalamka intaan meel marayay arag dad kula nooca naanaysta kamid ah mujtamacaadka kale waxyaabaha ugu badan qofka bini'aadamka khaatirkiisa way dhowraan hatta kuwa gaalada ah qofku meesha uu liito inta badan magac uga ma dhigaan Soomaalida waxa ugu badan qofka la eegaya halka aad ugu yara nuqsaanta leedun baaba magacaaga ah cawarow langadhow luglow feerow madaxayow gacmayow waxaan sheegayaan waa lagu eegayaa meesha la isiraadaba qofkan halkaas buu in kaleeyay inta lagu baadho halka in aad ku leedahay baa lagaaga dhigayaaba shakhsiyadaadaba inay halkaasi matasho dabeetana iyadii baa magac ku noqonaysa waa yaani nooc liidnimada kamida inaad qof bini aadam intaad baadho halka aad tiraahdo ugu liitaa aad astaantiisa ka dhigtaba lagu garto ilaahayna wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala wala tanabazu bil alqab bi'sa al-ism al-fusuq ba'da al-iman warnaanaysahayo waxaan isugu yeedhina baa leeyahay subhanahu wa ta'ala faasiqnimo iimaan dabadeed yaani kan baa u xun ilaahay wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala hays xamanina mujtamaca hadaad ogtay cirdigaagu inuu nabad galayaan cid ku xamanaynin qof fakhur oo wazn mujtamaca kula baad noqonaysa laakiin hadaad ogtay marka dhaqaaqdaba inay wax ka sheegi doonaan waa waxyaabaha ugu badan ee mujtamacaadka waxyeela waxa ilaahay tilmaamaya malaha dhaaf iyo qofka tuhumaadka tirada badan leh haysjaajuusinin oo haysbaadbaadina waxa soo dhan waxa la inooga reebayaa in la helo qof muslima oo toosan qof muslima oo quman bal waxa la inoo tilmaamay hatta warka hadii lagu soo gaarsiyo qof mu'min laga gaarsiyo inaad mowqif fiican iska taagto lawla sami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khayra wa qalu hadha ifkum mubin ay ilahi tilmaamay subhanahu wa ta'ala waxaan leenahay min muqtada al-iiman waxa kamida inuu qofku naxariisto wa akhlaaq islaamka looga baahan yahay qofka muslimiin inuu barto waxaan oran karnaa akhlaaqdu islaamiga ah waxay kaga soocantahay waxa kale way ka guda ballaarantay waa cilaaqadu qofku alla leeyahay subhanahu wa ta'ala ikhlaas bay ku salaysanto nooc min al-akhlaaq sir alla iyo adoonkiisa u dhaxeeya cilaaqadu qofku naftiisa leeyahay iyo walaalihiisa kale iyo basharka kale cilaaqadu leeyahay bal akhlaaqda islaamiga waxay gaarsiisantay qofku xidhiidhka uu leeyahay hatta dhirta iyo maxay iyo xayawaanka وفرس النبي عليه الصلاة والسلام وحط المامي هويني بان نار قشي بو النبي يقول هويني ايا النار كو قشي بصد حديث البخاري واي اخلاق حميك ولا دقت بصد واي حراتي ما يسي دينين بو النبي يقول حشيشكيدا سو cunte waxna ma ysiinin waxa uu nabigu عليه الصلاة والسلام حديث البخاري مثلا ku tilmaamaya haweenay baqiya oo gabadh xuna ayaa ilaahay dambigeeda wuxuu ku dhaafay ay haraadan ay waraabisay aygu waa shay liita laakiin bimujarrad inay u naxariisatay oo ay haraadan intay la kulantay ay u naxariisatay ay ilaahay subhanahu wa ta'ala dambigeeda ku dhaafay qofka muslimka ah uma banaana hatta dhirtan iyo waxaan iska googooyo waayo ilaahay baa wuxuu leeyahay wallahu la yuhibbu al-fasad لا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تعثوا في الأرض إفساد كده ما أنت ما بنانا بل وكي النبي قلنا هي عليه الصلاة والسلام حيوانك مثلا غرض لقى دكت وحلو قد كتبه إن تكدق تلنا هي أخلاقه وقاب قفك مؤمن كي أنغمه بل وحو النبي قلت المام حتى هداوي حق قورع عيسان إن قاب أخلاقك كترته له قورع هداوي حدي ليسان قاب أخلاقك كترته إن له دله وقورع نفطي nafta baad ka jaraysaa waxa kanaad gowracayso laakiin adoo nafta ka jaraya waxa lagu yiri suluub la dhaqan maxay mididaada iyo arkin baa lagu yiri midida soo soofayso iyadoo afle la kaalay marqura si fiican u mari kullu dalik waa naxariisaadu naxariisanaysa maxay neefkan inuu si fiican u samaysmo waxlana akhlaaqdu qofkuba waxaan qofka la yiraahdaa iyo waxa bulshada la yiraahdaa muwaaziniinta ugu waaweyn ee la saari karo ee lagu tilmaami karaa waa akhlaaq
sidaa ogeed baa waxaan leenahay xataa ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aanka markuu inooga warramayo cibaadaadka ugu waaweyn ee islaamka layna faray waxyaabaha qur-aanku inoo tilmaamayo waxaa ka mid ah cibaadaadkaba danta laga leeyahay hadafka dunawigii ka aakhira ha dambeeyo ahdaafta dunawiga cibaadada laga leeyahay inay ka mid tahay akhlaaqda inay fiicnaysiiso maalan salaad waa cibaadaadka ugu waaweyn ee qofka muslimkaa saaran waana cibaadada uu nabigu ku tilmaamaya aakhiro markuu isa soo taagana waa shayga ugu horeeya ee acmaasha alla ku saabsan ee lagu xisaabiyo haddana ilaahay markuu tilmaamaya waxa la yidhi waaqimi الصلاة ina الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر min gaaya salaada loo oogayo waxaa ka mid ah inay reebayso maxay qofka inay ka reebto alfaxshaa walmunkar inay xumaa ka reebayso walidalik inay dunuubta maydhayso inay qofka dhaqankiisa hagaajinayso sidaa awgeed ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamaya maalan zaka ayaa la sheegaya zakada waxaa la yidhi ka qaad khud min amwaalihim sadaqatan tutahhiruhum baa la yidhi watuzakiihim taskiyati nufuus ayay samaynaysaa baa la leeyahay oo waa maxay arkaanta ugu waaweyn ee akhlaaq xumada qayb ka mid ay tahirtaa shuxiga iyo bukhliga iyo kuwaasi waa akhlaaq xumada waxyaabaha ugu waaweyn bay ka mid yihiin inuu qofku shaxiix noqdo oo idhaa waa kaygii uun isagu wax lahaada mayna basharku inuu wax u dhiibo ama wax siiyo inuu diidaa waa akhlaaq aad u liidata walidalik ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ku tilmaamay yani bukhligu waxyaabaha lagu halaagsamaba inuu ka mid yahay ilaahayna wuxuu ku tilmaamaya khud min amwaalihim sadaqa tutahhiruhum watuzakiihim biha bale waxaynu leenahay soonkii ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamaya haddaan soonkiinu idinka celinaynin qowlu zuur iyo walcamali bih iyo xumahaasoo dhan haddaanu idinka reebaynin inaan ilaahay baahi u qabinba dee cunadiina inay iska daysaan yani in soonkaba qadaayaadka ugu waaweyn ee loo soomayo acmaasha aakhiro iyo waxay ka tarta marka laga yimaado inay tahay qofku adduunka in akhlaaqdiisa ku fiicnaato oo uu barto bishatan inay tahay bil training uu qofku galo uu baranayo naftiisa siduu u hanan lahaa u ilaalin lahaa uu controli kari lahaa hallanay waxaa laynooga baahan yahay ummadda haddaynu rabno inay jirto waa inaynu isku daynaa ummadda dhaqankeeda inaynu wax ka bedelo keeda weyn iyo keeda yari siday u wada dhaqmaan ardayga iyo macallinku siday u wada dhaqmaan ka maamulka dawladda haya iyo shacabku siday wada dhaqmayaan keeda cuqaash iyo salaatiinta iyo mujtamacooda caadigiisay wada dhaqmi karayaan qof kasta oo muslima iyo sidaad ula dhaqmi lahayd haddii xidhiidhkaasi uu hagaago everything else wax kastoo kale oo aad u baahantay way hagaagayaan waayo mujtamacu hadduu noqdo mujtamac waxay gaaladu homogeneous ku tilmaa yani mujtamac dhan u wada jeeda hadduu noqdo oo qiyamku uu haysto dhaqanka uu haysto qaabku u fakaraya ay mid tahay midnimada waa waxa ugu weyn umamku ay hore ugu socdaan akhlaaqiyaadku waxay u baahan yihiin dadka muslimiinta inay soo nooleeyaan waxaan oran karnaa islaamnimaduba waagii hore waxa ay ku faaftay ee waliba dunida ay ugu faaftay si ay ku tilmaamaan qolada taariikhda qoraya waxay dhahdeen the explosion of Islam bay dhahdaan al-infijar qaraxi islaamka bay dhahdaan yani taariikhda marka la eegayo waxa la eegaa basharku imisuu faafi karaa dawladii waqti intee lag bay ku qaadataa inay caalam dhan ka taliso ama dunida sanawaad boqolaal sanadood bay soo qaataan muslimiintuna waxoogaagii uu nabigu Madiina joogay ee uu dawladda islaamiga dhisay intii ka horeysay Maka la joogay afraadda muslimiinta la dhisay Maka afraad baa la dhisay koox yar oo aad u tiraya Madiinana waxa lagu kaweemay dawladda islaamiga ahay kadibna waxa bilaabmay futuuxaadkii islaamiga ah sanadkii 12aad ee hijriyada waxay bilaabeen muslimiintu inay labadii dawladood ee dunida ugu waaweynaa weerar la galaan sanadkii 14aad iyo 15aad ee hijriyadana labadii dawladood ee dunida ugu waaweynaa intoodii ugu weynayd bay jabiyeen walana waxay ka qabsadeen maxay Sham iyo Masar iyo intan oo dhan Persiana waxay jabiyeenba ilaa ay caasimadoodii bay galeen Madaina waxay noqdeen quwwa caalamiya laakiin wax leenay intay xoog ku faafeen waxa ka badnayd mar kastaba inta ay akhlaaq iyo dhaqan ku faafeen caalamka muslimiintii qabsatay oo dhan waxa la yiraahdaa ahaan waa waxaan 10 milyan gaadhaynin kala iskuba wada daro buqacdaba wixii ku noolaa
haddana caalam dhan bay qabsadeen caalamka badh idiloo ka mida waxay ku furteen dhaqan iyo akhlaaq maanta dawladda muslimiinta ugu tirada badan leh xuduudan yararee juqraafiga ee gaaladu samaysatay dawlad ku jirta oo muslima Indonesia ugu badan tirada ugu badan waa Indonesia jihaad iyo dagaaltoona lama tegin waxa tagay niman tujaara baa la yiraahdaa dhaqankii nimankan laga arkay ayaa lagu islaamay wadanada inta leeg diin waxa gaarsiiyay dhaqankii dadka kan ay lahaayeen waxaan leenahay labadii dawladood ee waaweyn ee dunida waxay ku jabiyeen ee koowaad wuxuu ahaa akhlaaq markay la macaamilayaan marka ay la dagaalamayaan qaab walba dhaqan bay kala haayeen akhlaaqiyad toosan oo quman ay kala haayeen ilaa iyo xad bay gaadhay marka umamka waa la jabin karaa xagga xoogga laakiin ma fududa umadu waxay rumaysantahay qaabkii u fakaraysa inaad jabisaa yani dal intaad ku duusho xoog inaad ku qabsato waa suurtagal laakiin dal intaad tagto oo furato in dadkuba isbedelo oo afkiisa iyo diintiisiiba uu ilaaba wax fudud maaha muslimiintu waxay sameeyeen caalamul islaami dunidan intay qabteen ayay dhaqankoodii iyo akhlaaqdoodii waxay dadka kala bartay in dadku ka tago diimihii iyo afafkii ay haysteenba oo loo guuro dholal badan maanta af carabi laga hadlo af carabi lagu hadli jiray luqad ka gedisan baa la lahaa oo caalamul islaamiga kamida ama dad badan maanta carab sheegta de carab ma ahayn asliyan laakiin waxa bedelay waxaan oo dhamay wuxuu ahaa dhaqan islaamiga iyo qaabka ay ula tageen dadkan muslimiintii oo waxaan leenahay xad bay gaadheen iyaga laga doorbido dawladihii ay rideen iyo wixii ay ka tageen oo dhan waxaynu u baahanay marka haddii aynu rabno inaynu islaam soo celino iyo haddaynu rabno mujtamac muslima oo kooban xataa inaynu samayno iyo haddaynu rabno qof muslima oo fiican inaynu noqono qura qof bini aadam oo shakhsiyad muctabar leh ah noqon kara waa inuu qofku ku xisaabtamo afcaasha ka soo fulaysaa noocayta waa inuu qofku tijaabiyaa qof kastoo muslimi waa kastoo u bariya in iimaan u kordho akhlaaqina u kordho dhaqan inuu kuu kordho waxay yidhaahdaan culamada nafsiga kuwan yidhaahdo dadka bay yidhaahdaan in badanoo ka mid ah acmaashiisa caqliguma xukumo bay yidhaahdeen bulshada wuxuu ka arko taqliid baa iska xukuma dhaqamo badan bay dadku sameeyaan waanu ka fikirin war waxani ma sax baa ma qalad baa soo dadnimadaada ku yihi laakiin dadkoo sameynayeen buu arko iska sameeyay dadkoo qayilayeen buu arko iska qayilay dadku sigaar cabayeen buu arko iska cabay muu eegin ba war sigaarku horta maxaa laga helaa kuwan cabaya maxay ku qabaan belada waxay aad qofku caqliga markuu isticmaalayo inuu ka fikiro kuwan maxay ku qabaan waxa kan laakiin bimujarrad dadkaas sameynayeen inuu sameeyo waxa leenahay waxaynu u baahanay ee ugu weyn waliba mujtamacan aynu ku noolay maanta uu u baahan yahay waxa weeyaan in revolution thawra inay dhacdo akhlaaqdi way dhimatay tii rag iyo dumarka u dhaxaysay way baabaaday tii waalidka iyo ilmihiisa u dhaxaysay way baabaaday tii macalinka iyo ardayga u dhaxaysay way baabaaday kii dawladda xafiiska fadhiya mujtamaca u imanaya u dhaxaysay way baabaaday kii tabiibka iyo mariidkiisa u dhaxeeyay way baabaaday yani maqaayistii waxay isu bedeshay maqaayistii reer galbeedka iyo maadada ku xisaabtamay waxan maxay iga soo galayeen baa qofku leeyahay haduu isleeyahay lacag baa ka soo galaysana wadaya hadii kalena uu ka tagaya laakiin asalku wuxuu ahaa qofka muslimka ahi inuu u fakaro qaabku u fakari lahaa qofka muslimka waxaan rabaa inaan hadalkayda ku badin laakiin kelmado aad qaadan kartaan inaan idin dhaxdo hadaynu rabno inaynu bulshada wax ka bedelno waxaynu u baahanay koow inaynu nafaheena wax ka bedelno in allaha laa yugayiru ma biqawmin xataa yugayiru ma bianfusihim muctaqadkiiyo waxaynu rumaysanay inaynu saxno kadibna suluuga iyo dhaqankaynu haysanay inaynu saxno dadku dhaqan buu ku islaami karaa dhaqan ayaa qofka diinta soo gelin kara qura oo lagula dhaqmo taariikhda islaamigana waa masaa'ilka ugu mashhuursan ee ugu caansan dad ay deeq ku soo geliyeen diin dad ay si fiican ay ula dhaqmeen dulqaad iyo xilmi ay ula yimaadeen akhlaaq iyo dhaqan fiican ay kula dhaqmeen taas baa qofka keenta in uu soo dhawaado waxaan filayaa dadku way hor fadhiya waxa u badan tahay dhalinyaro da'yar waan odhan karo waa da'da revolutioniska samaysa isbedelada mujtamaca waa da'da samaysa da'da weyni inta badan way fakartaa waana laga yaabaa manaahijta ama qaabka loo fakarayo mujtamaca inay wax ka bedesho
laakiin xoogga dhabta ee bulshooyinku ay leeyihiin waa da'da yar xataa ambiyada dadka ugu badan ee u gargaaray waa shabaab ka dib ugu noqotay taariikhda dib u daraasayso shabaabku waa xoogga qura ee wax bedeli kara laakiin hadduu shabaabka laftiisu mufsid u yahay ama akhlaaqdiisu ay liidato isna waxba ma bedelayo shabaabku inta ugu badan la mustaqbalkay ka fakaraan iskuulka waa gashaan dabeetana waxa laga fakaraa jaamacaadka marka la galayo waxa lagu qiimeeyaa un marketka suuqa soo kuma egtaan yani jaamacadda maxaa chemistry nimo u doonaya miyuu jiraa ama physics nimo u baro ama engineernimo u baro waxba ku fali maysid waayo aakhirana ilaahay looguma dhawaado dunidana qofka wax ma dheeraysiiyo laakiin maxaad raadinaysa waxa ugu badan ay dadku raadiyaan waa lacag dad suuqa soo egto oo tiraahdo accounting-ka aad u fiican accounting baad berri arkaysaa dadkoo dhan oo wada baranaya haddii suuqa lasoo yaro maroo la arko iyadoo computer science uu xoogaa ka jiro berrito waxaad arkaysaa iyadoo booming uu yahay suuqa computerku da'da yari markaa inta badan mustaqbalkay aad uga fikirtaa hadhan la mustaqbalka ka fikiraysaan ha noqdo dadnimadiina inaad qof muslima oo toosan noqoto kaas baa waxa ugu fiican in laga fikiro waa in qofku u fikiraa hantida ugu badan ee qofku haystaa waa dadnimadiisa hantidu lacagta maaha lacagtu waxba ma kordhiso badan waxa ugu badan ay kordhisaa waa calool bay dhergisaa mara la huwadana way keentaa intaasay keentaa waxba kale ma keento laakiin waxa rasmiga ee qofka matala shakhsiyadiisa rasmiga ah waa dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa waxay qofka inay warwar ku hayso markaa xaafadan haddaan dego waa xaafad dhalinteedu ay akhlaaq xunto akhlaaqda kaaga xumaanaysa iskuulka inaad uga bedelato daraaddeed in ardadiisu ay qaar liita yihiin iskuulka inaad u tagto daraaddeed inay dad fiicani joogaan waayo waxaad ilaalinaysaa hantidaadii maguuraanka ahayd saaxiibkaaga inaad eegto hadduu habaarqaba sigaar cabaya ama qaad cunaya ama mushkilad kale haddaanad islahayn waad ka jari karaysaa inaad iskaga tagto waayo hantidaadii maguuraanka ahayd buu khatar ku yahay yacni harwada aad u baahantahay inaad ilaalisaa waa harwada ah dhaqankaaga iyo akhlaaqda iyo iimaankaaga inay kuu noqdaan hantida ugu weyna aad isleedahay ilaali ee salaynaysa degaankaagu halkuu noqonayo ee aad ku salaynayso dadka aad raacayso ee aad ku salaynayso bulshada qaabka aad ula dhaqmayso waa hanti runtii aad u qaaliya laakiin qalla ay yartay dadka inta ka fikirta hantidaas siduu u ilaashan lahaa iyo siduu u dhowri lahaa iyo siduu mujtamaca kale ugu gudbin lahaa kelmadeyda waxaan kusoo koobaya marka islaamnimadu yay af inaga noqonin yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun kabura maqtan cinda allahi an taquluu maa laa tafcaluun ilahay baa wuxuu leey ya ayuha aladiina aamanuu lima taquuluun maa laa tafcaluun war maxaa u odhanaysaa waxaydan samaynay laa ilaaha ila allahu markaad tidhaahdo dee wixii ay lahaydna waa lagaa rabaa laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulu llah waxay lahaydna waa lagaa rabaa kelmadaydu waxay ku koobantahay marka bulshada maanta joogta waxaa laga yaabaa dad badani had iyo goor isbedelka inay ka egaan madaxweynihii ma tegey madaxweyne cusub ma la keenay baarlamaanka iyaa iska bedelay kuwaas in badan wax ma bedelaan bulshada waxaa bedele xooggan soo socdaa sida uu u fekero iyo siduu nolosha u arkayo iyo siduu wax u qiimaynayo xooggaasi hadduu nolosha aragti ka leeyahayna wuu bedeli karaa haddaan uu dee aragtidu ka leeyahay ay tahay wax cunna gaalada lafteeda waxay dhahaa maxay ha u noolaanin bay dhahaa inaad wax cunto ee wax u cun inaad noolaato bay dhahdaan yani ha u noolaanin inaad wax cunto noloshaadu hadday noqoto in xoolasaad u heshaayo xoog iyo wax la cuno marka noloshaadii cunnaa kule adiga cunnaata laakiin u noolow bay yidhaahdaan wax u cun inaad noolaato mujarad cunnadu ha kuu noqoto waxaad nolosha ku kaalmaysanayso laakiin noloshaada qiimaheedii yay noqonin waxaan idinkula dardaarmaya waxa weeyaan inaynu طabaqno islaamnimada aynu wada rumaysannahay laa ilaha illa allah muxamadun rasuulullah aynu wada rumaysannahay inaynu si fiican u طabaqno oo nolosheenna ku طabaqno oo garanno cid waliba xaq aynugu leedahay iyo akhlaaqda laynooga baahan yahay aladab maca allah maca rasuulihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh iyo maca annaasi ajmaciin waxaynu kula dhaqmi lahayn inaynu garanayno markaas bay suurtagal tahay inaynu noloshanna wax ka bedelno hawrana samayn karnaa hawro dhab ah baynu mujtamaca ku samayn karnaa haddii dhaqankeenaasi isbedelo waayo maanta magaalada hadday soo galaan afar yaryaroo dhafoorada xiiran saa dambe waxaad arkaysaa nus yaryaroo kale ku daydoo dhafoorada xiirtay socanka maaha
ama haddii tviyada la daawado iminka waatan la leeyahay caagii yaraaba dunida oo dhan isugu timi oo la eriyaya kubaddii dunida ay sheegaan waa jas malhaa waa wax bini aadamka lagu mashquuliyo waxa laaliya waxay yani nimanka reer galbeed waxa ugu weyn ee ay shabaabkooda iyo dadkooda ku hayaan ku mashquuliyaan waa laba shay waxa la yiraahdo sportsku inta badan looma qasdiyo waxa laga yaabaa inaad tiraahdo waa miyaan ahayn jirka la dhisay waa jirka si badan baa loo dhisi karaa laakiin kani waa malhaa isagu waa meel dadka lagu waalayo iyaba yiraahdaan music shanama iyo music iyo inta tan labada kooxoodbana waa drug dealers drug cabaan inta ugu badan fanaan kasto dunida ugu caansan waa ka ugu khabaysan ku kasto kubadda maqashaa Maradona waa maqlaysan inay raayeen Japan baa loo diiday darogada cabay daraadeed Japan oo dhan baa fiisay u diiday ala kulli xaal isku dar waa malhaaga mid kamid oo ku dhex jira hadday maanta shabaabku arkaan oo labada dhafoorba xidhan aroorta Maxamed magaalada ku arki doontaa dadkoo dhafoorada xiran waan isweydiinin warkan xirtay muxuu yahay maxaa se loo xirtay aan cid isweydiinaynin waxa la yiraahdaa intiina akhlaaq fiicnaataan tabaneeya casho kadib waxaan ogahay in Hargeysa wax badan iska bedeli doonaan hadaa intiina isku daydaan inaad dhaqan ka muujisaan waayo ninkii xumaha waday wuxuu isku dayay inuu xumihiisa xagga sare soo saaro oo isku dayo inuu misaal umada u noqdo dadku ay ku dayan karaan ama dhafoor la xiray ha noqoto ama surwaal yaro lawga korkiisa laga goynay ha noqoto ama wixii la doonayaba ha noqotee wuxuu isku dayayaa inuu misaal u noqdo najm inuu noqdo umada ay ku dayato way dadka fiican ay u noqon kari waayeen inay dadku waxay ku daydaan soo saaraan kelmadaydu waxay ku koobmaysaa waa risaala xambaarsantii risaaladuna waa taa uu nabi Muhammad leeyahay alayhi salaatu wasalaam inma bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq idinkaana u shabaab iyo dhalinyaro xoog ba isku daya risaalada inay gudbisaan wallahu a'lam billahi tawfiq